qisadani waxa ay ka hadlaysaa cafinta dadka. Haddaba qisadani waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqor waxa uu amar ku bixiyay in saldhigga boqortooyadiisa lagu soo xareeyo 10 eey oo dadcun ah. Hadafkiisana ama hadafka uu ka leeyahay eeydan dadcunka ahna waxay ahayd in uu ku tuuro cid kasta oo khalad ka gasho ilaa uu ka dhinto. Taasina wasiiradiisii iyo dadkii u dhawaa waxa ay u noqotay ciqaab ilaa ay wasiiradiisii ka noqdeen kuwa si daacad ah ugu shaqeeyo. had iyo jeerna waxay ahaayeen kuwa awaamirtiisa daneeyo. Maalin maalmaha ka mid ah wasiir u dhow boqorkii ayaa ka hor yimi mid ka mid ah hadalladiisii oo ku saabsanaa arrimaha boqortooyada. Boqorkii ayaa carooday wuxuuna ilaabay in wasiirkani uu yahay wasiir u dhow, wuxuuna amar ku bixiyay in wasiirka lagu tuuro eeydii dadcunka ahaa. Wasiirkii ayaa rumaysan waayay go'aankii uu gaaray boqorka. Si la yaab leh oo ay cabsi ku jirto ayuu waxa uu ku yiri boqorkii, boqorkeygiiyow waxa aan kuu soo shaqaynayay muddo ka badan 10 sano. markastana waxaan ahaa mid qaata awaamirtaada kuna adeeco. haddama waxaa sidaan iigu samaynaysaa ra'yiga kaliya ee aan dhiibtay. miyaadan xasuusanin wixii wanaag ahaa ee aan kuu soo samayn jiray si aad iigu abaalmariso wanaageygii hore? micnaha wuxuu ula jeedaa cafi oo waxa igu cafisaa wanaaggii hore ee aan kuugu soo samayn jiray. oo miyaadan garanaynin xadiiskii suubanaheena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. qofkii wax wanaag ah idin sameeya awaalmariya, haddii aad weysaan waxaad ku awaalmarisaan u duceeya. boqorkii ayaa aad u dhageystay hadalkii wasiirka, wuxuuna ogaaday waxa uu ku hadlayo wasiirka inay yihiin wax saxan, laakiin cabsi uu cabsanayo sharaftiisa in ay hoos u dhacdo go'aankiisii kama uusan laabanin. wasiirkii ayaa waxa uu ka codsaday boqorkii inuu siiyo muddo 10 maalmood ah inta uusan fulin xukunkan. boqorkii ayaa aqbalay codsigii wasiirka. wasiirkii ayaa waxa uu aaday meeshii lagu xanaaneynayay eeydii dadcunka ahaa. ninkii ilaalinayayna waxa uu ka codsaday in uu 10 maalin oo kaliya wax siiyo eeydan dadcunka ah. ninkii waardiyaha ahaa ayaa la yaabay codsigii uu soo jeediyay mid ka mid ah wasiirada aadka ugu dhow boqorka maadaama uu haysto shaqo ku haboon. ninkii waardiyaha ahaa waxa uu ka tagay shaqadii waxa uuna qaatay fasax. wasiirkii waxa uu bilaabay inuu ilaaliyo eeydii quudiyana oo uu siiyo dhammaan wax kasta ay u baahan yihiin. kadib waxa isguray oo dhamaaday 10kii maalin. waxaa dib u soo laabtay waardiyihii. boqorkiina waxa uu amar ku bixiyay in wasiirka lagu fuliyo xukunkiisa. kadib waxa lagu tuuray xiradii ay ku jireen eeydii dadcunka ahaa. boqorkii iyo xubnihii la socdayna waxa ay sugayeen sida ay eeydan gaajeysan yeeli doonaan wasiirka. laakiin waxaa dhacay arrin la yaab leh. eeydii dadcunka ahaa waxa ay yimaadeen wasiirkii agtiisa ayadoo aanan midkood wax dhaawac ah u geysanin. boqorkii ayaa aad ula yaabay arrintii meesha ka socotay, wuxuuna amar ku bixiyay in wasiirka la soo saaro. markii uu hortiisa soo istaagay ayuu weydiiyay, maxaa ku samaysay eeydan? wasiirkii ayaa ku jawaabay, boqorow, eeydan waxaan wax siinayay muddo 10 maalin oo kaliya, mana aysan iloobin wanaaggii aan u soo sameeyay, balse adiga waxaan kuu soo shaqaynayay muddo 10 sano ka badan. wax kasta oo aan kuu soo sameeyayna waxaad ku ilowday ilbiriqsiyo, marnana ma xasuusanin wanaaggii aan kuu soo falay. waxaadna tirtirtay wixii fiicnaayayna dhexmaray, waxayna ahayd inaad cafis ii fidiso. alla kitaabkiisa quraanka waxa uu ku leeyahay: faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah. ruuxii cafiye oo wanaajiyo ajarkiisu alla korkiisa ayuu ahaaday. sidoo kale alla kitaabkiisa casiiska waxa uu ku leeyahay: waliyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yaghfira allahu lakum wallahu ghafuurun raxiim. ha cafiyeen hana dhaafeen, miyeedan jecleen alla inuu idin dhaafo? allana waa midka dhaafidda badan oo naxariista badan. boqorkii ayaa aad u xishooday, wuxuuna amar ku bixiyay in boqorkii la daayo la cafiyo. sidoo kalena wuxuu amar ku bixiyay in laga saaro eeydii saldhigga qasriga. haddaba waxaa halkaas inoogu soo idlaaday qisadii quruxda badneed ee ka hadlaysay cafinta dadka. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. muuqaalka xiga intaan ku kulmaynan waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.